habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Shumac Media. Qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya beesha caalamka oo warqad digniin ah u dirtay guddiga doorashooyinka Jubbaland. Maxaa dhex maray Engineer Yariso iyo Maryama oo ahayd haweeneydii isku qarxisay aqalka dowladda hoose ka hor inta uusan dhiman. Yaa damiyay kaamirada qarsoon ee ku xirneed aqalka shirarka ee dowladda hoose. Murun badan oo arrintaasi ka dhashay ayaad ku maqli doontaan wararka iyaga caawa. Xildhibaan Mahad Salaad oo su'aal ka keenay qaraxii lagu dilay Allah u naxariistay Engineer Yariso. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan. U diyaar garooba warkaasi oo fidsan. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa su'aal ka keenay qaraxii lagu dilay Engineer Yariso. Mahad Salaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah u dhaliilay natiijada ka soo baxday baaristii dowladda Soomaaliya ay ku sameysay qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir ee lagu qaarijiyay Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka iyo qaar kale oo ka tirsan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Sagaalka su'aalood ee Mahad Salaad uu ku soo bandhigay bartiisa Facebook ayaa u qornaa sida tan: 1. qofka meesha isku qarxiyay oo aan la shaacin magaciisa, shaqada uu hayay, sida uu uga soo gudbay goobaha baarista isagoo sita walxaha qarxa ee sidaas u weyn iyo sida uu ku soo galay goobta shirka. 2. qofka warbixintu sheegtay inuu isqarxiyay sidee uga mid noqday madaxda gobolka, muddada uu ka shaqaynayay, habka uu shaqada ku soo galay, cidda shaqaalaysiisay iyo habraaca loo maray shaqaalaysiintiisa. 3. yaa mas'uul ka ahaa baarista albaabada, maxaa tallaabo ah oo laga qaaday saraakiishii gaboodfalkaas amni samaysay, imise qof ayaana loo xiray dhacdadan naxdinta leh. 4. maxaa loo damiyay kaamirada ku xirneed howlka shirarka ee qaraxu ka dhacay ka hor inta uusan qaraxa dhicin. 5. saraakiishii yimid goobta qaraxu ka dhacay maxay ula baxeen xogkeediyaalkii kaamirooyinka ku xirnaa xarunta gobolka Banaadir camera memory iyadoo ay joogto hay-addii ku shaqada lahayd ee dambi baarista CID-da. 6. saraakiishii ku fashilmay ilaalinta amniga xarunta gobolka Banaadir sidee loogu aaminay inay ka qayb noqdaan guddigii baaritaanka sameynayay. 7. ma dhici kartaa inay jiraan shaqaale ama madax kale oo iyaga ka tirsan argagixisada oo weli ka shaqeeya xarunta gobolka Banaadir, diyaariyana u ah fulinta falal kuwan oo kale ah amaba ka sii foolxun. 8. haddii xarunta gobolka Banaadir ee amnigeedu aad ku adkaa sidan loo beegsaday, ma dhici kartaa in xarumaha kale ee dowladda in iyaguna ay dayacan yihiin sida madaxtooyada, golaha wasiirada, golayaasha baarlamaanka iyo garoonka diyaaradaha. 9. haddii warbixinta aanay dhammaystirnayn 2 toddobaad kadib, goorma ayay soo dhammaystirmaysaa? Dhiigga Engineer Yariso iyo saaxiibadiis ammaano ayuu ku yahay qof kasta oo mas'uul dowladeed ah. sidaas darteed waa in la sameeyo guddi madax bannaan oo khibrad iyo aqoon lagu soo xulay, baaritaano tifaftiranna soo sameeya si looga gungaaro xaqiiqda dhabta ah ee musiibadii ka dhacday xarunta gobolka Banaadir, ayuu ku soo gabagabeeyay Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Su'aasha isweydiinta mudan ee sida aadka ah loo hadalhayo ayaa ah su'aasha afraad ee xildhibaanku uu soo bandhigay ee ah maxaa loo damiyay kaamirada ku xirneyd howlka shirarka ee qaraxu ka dhacay ka hor inta uusan qaraxa dhicin. waa su'aal ay si aad ah isku weydiinayaan siyaasiyiinta iyo shacabka reer Muqdisho oo ilaa hadda aan jawaab loo helin. dhinaca kalena beesha caalamka ayaa warqad xasaasi ah oo digniin ah u dirtay guddiga doorashada Jubbaland. Qaramada Midoobay iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa ka digay in doorashada Jubbaland ay u dhacdo qaab daahfurnaan la'aan ah, iyagoo ugu baaqay maamulka madaxweyne Axmed Madoobe iyo guddiga doorashooyinka inay habraac waafi ah u dejiyaan tartanka doorashada. warqad loo diray guddiga doorashooyinka Jubbaland ayuu wakiilka cusub ee Qaramada Midoobay James Swan ku sheegay in su'aalo ka qabaan habka loo maareeyo soo xulista xildhibaanada iyo doorashada madaxweynaha. sidee guddiga doorashooyinka u xaqiijin karaa in dhammaan musharaxiinta si siman uga wada qaybgali karaan tartanka, ayaa lagu yiri warqadda. wakiilada beesha caalamka ayaa ku baaqay doorasho nabdoon oo xor iyo xalaal ah, sidoo kalena ku salaysan habraac hufan. warqadda James Swan ayaa la filayaa inay abuurto dood ku aadan kalsoonida lagu qabo guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo inay kismaayo ka dhacdo doorasho natiijadeeda lagu wada qanci karo. dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa sheegtay
war qoraal ah ay soo saartay maalin ka hor inaysan marnaba aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka Jubbaland. maxaa dhex maray allah u naxariistay injineer Yariisow iyo haweeneydii isku qarxisay ee lagu magacaabi jiray Maryama? warar lagu kalsoonaan karo oo soo gaaraya muuqabaahiyaha Shumac Media ayaa sheegaya in haweeneyda isku qarxisay allah u naxariistay injineer Yariisow ay weydiisatay maalmihii xorriyadda fasax inay galayso ayna u baahan tahay gargaar caafimaad oo ay u aadayso dalka Hindiya, ayna weydiisatay injineerka allah u naxariistee dhaqaale ay halkaas isaga soo daaweyso. waxaana wararku ay sheegayaan in injineerka uu dhaqaale siiyey si ay isku soo daaweyso, balse warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in haweeneyda markaasi ay u abboqooshay dhinaca kooxda Al-Shabaab si ay isugu soo diyaariso fulinta hawshan qaraxa. haweeneydan ayaa la sheegay maalmihii xorriyadda ee fasaxa ay galayeen shaqaalaha dowladda ay iyaduna u boqoshay dhinaca iyo deegaanada ay kooxda shabaab ka arrimiyaan, halkaasi oo lagu soo diyaariyey si ay u fuliso qaraxii ay nafteeda ku haligtay ayna ku galaafatay mas-uuliyiin badan oo u horreeyey allah u naxariistay injineer Yariisow. dhinaca kaleetana waxaa muran aad u xooggan uu ka taagan yahay cidda ka dambeysay daminta kaamirooyinka qarsoonaa ee ku xirnaa aqalka shirarka dowladda hoose ee Xamar, taas oo gebi ahaanba aanan duubin waxyaabihii ka dhacay gudaha aqalka. daqiiqado ka hor ayaa la sheegay in la damiyey qalabkii kaamirooyinka qarsoonaa ee ku xirnaa halkaasi si aysan wax caddayn ah u duubin, taasoo ilaa haddana aan la ogeyn cidda ka dambeysa, balse wararka qaar waxay sheegayaan inay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir daminta kaamirooyinka qarsoon ee duubi lahaa waxyaabihii halkaasi ka dhacay. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa sheegay inaysan habboonayn in baroor diiq iyo tacsi loo sameeyo allah u naxariistay injineer cabdiraxmaan cumar cismaan Yariisow. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dhaliilay go-aankii ay dowladda Soomaaliya tacsida iyo baroor diiqda ugu sameysay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cismaan Yariisow. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu arrintan ku saabsan cabdiraxmaan ugu dhigay sidan: tacsi iyo baroor diiq waxaa loo sameeyaa ruuxii si dabiici ah u geeriyooda. allah u naxariistay injineer Yariisow cadow ayaa dilay ee si dabiici ah uma dhiman. waxay ahayd inaan muujinno cadow uu haldoorkeennii laayay. diinteenna islaamka ma dhiiragelinayso tacsi, janaaso iyo baroor diiq loo sameeyo dadka gacanta cadowga ku shahiida. sababtuna waxau ku sheegay inaanan cadowga loo muujin dabacsanaan, dadkana aan dhiigga shuhadada wax caadi ah looga dhigin, ayuu sii raaciyey cabdiraxmaan cabdishakuur. waxay ahayd in injineer Yariisow iyo saaxiibadii kale ee la dilay loo aargudo. waxay ahayd in injineer Yariisow guutooyinka ciidanka difaaca ku jira loogu magacdaro, hoggaanka dowladdana uu furmaha dagaalka joogo. waxay ahayd in cadaaladda la hor keeno kuwii abaabulay, fududeeyey, falkana ka geystay, laakiin midkoodna ma dhicin, ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo bartiisa Facebookka ku soo qoray qoraalkaasi uu ku dhaliilayay tacsidii iyo baroor diiqda ay dowladda Soomaaliya u sameysay allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan Yariisow. dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay tallaabo ka qaadayso shirkado dayacay xujaayada sanadkan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay qaar ka tirsan shirkadihii keenay xujaayada inay si qaldan u maamuleen guryihii xujaayada ee Mina. wasiir ku-xigeenka oo ka mid ah guddiga dowladda Soomaaliya ay u xil saartay kormeeridda xaaladda xujaayada Soomaaliyeed ayaa sheegay in shirkadaha qaarkood ay sameeyeen dayacaad aad u weyn. waxa uu sheegay in dowladda ay tilaabo ka qaadi doonto isla markaana si adag loola xisaabtami doono 4 shirkadood oo uu sheegay inay marsiiyeen hanaan qaldan xujaayada Soomaaliyeed ee sanadkan jooga dalkaasi Sacuudi Carabiya. daraa maalin aan maalintaan ahayn oo habboonayn in dadka qaarkood si aan habboonayn ay u tageen Mina, taa iyada oo culamo horkacdan ee qaladaad kulli ay noqon doonto mid laga xisaabtami doono shirkadaha noocaan la xisaabtami doono. maadaama aad arkaysaan gaarigan hadda noociisa arkaysa ayagana loogu qidmeynayo looguna talagalay in mataqaanaa wanaaggaas iyo waqtigiisa ay ku dhaqaaqo in dad suuq jooga ay iska raacaan xujaayada qaarkood, waana ayaan daro taa taagan. waxaan leenahay in uguna digaynaa inta badan inaysan noocaan oo kale hadda u dhicin. waxaan leenahay shirkadaha shalay qaldamay 4 ah
وأنه حساب سيهين ولا حساب تمدون هدي على إن شاء الله تعالى وواحد قرد الراح وواحد أنه كوابون حاجة إن متقنا الظلم اللي هو جيسته حاجة مسكين وسعود الله بأن ساعدنا قارق إنه الراعو ماشى الراشين أولين بيان أولين هدي أرض يبوحن يسكرب عرر تاسن waxay tahay dhaawac markii sabad dhacaysa in mataqaana foodaas ay timaado oo aan kulli xabooreen in xujeedii oo aanan meesha gaarin in la sii galo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa kulli waa arkaysaan in bilow waxa uu xusay in sidoo kale gaadiidka basaska ee xujeeda qaar u qaadi lahaa Mina aysan helin isla markaana hawshaas ka gaabiyaan shirkadihii diyaaradaha ee soo daabulay sawirro laga soo qaaday xujeeda isla markaana la soo geliyay baraha bulshada ayaa muujinaya iyagoo jiifa dhulka dawladda Soomaaliya ayaa sanadkan dhowr shirkadood u ogolaatay in xujeeda Soomaalida geeyaan xajka waxaana jiray tartan la geliyay in ka badan 80 shirkadood tartanka ay xukuumadda sheegtay inay ku soo baxeen 58 shirkadood kuwaas oo xaq u yeeshay inay xujeeda soo daabulaan sanadkan qaarkoodna gurbaba ay dayacaad ku sameeyeen xujeeda sanadkan daawada haddii aad ku cusub tahay channelkeena Shumac Media subscribe saar si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya iyo xogaha ka qarsoon waad ku mahadsantihiin daawashada warkayaga